madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta warqadaha aqoonsiga safiirnimo waxa uu ka gudoomay safiiradaha dowladaha Australia iyo Canada u fadhin doona Soomaaliya kadib kulan uu kula qaatay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. kulanka oo waqti badan soconayay saxaafadan dibadjoog ee ka ahayd ayaa markuu soo ilaaday waxa warbaahinta shir jiraayad u qabtay agaasimaha madaxtooyada warfaafinta u qaabilsan Cabdinuur Maxamed Axmed oo sharaxay kulankaasi waxyaabay looga hadlay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu maanta ka gudoomay warqadaha aqoonsiga danjirinimo danjiraha u matali doona dowladda Austria jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Christian Fellner. madaxweynaha iyo danjiraha markii warqadaha aqoonsiga laga gudoomay kadib waxay ka wada hadleen sida loo abuuri lahaa xiriir diblomaasiyadeed oo ku qotomay iskaashi iyo wax wada qabsi oo yeeshaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Austria. waxyaabihii madaxweynaha iyo danjiraha ay ka wada hadleen waxa ugu muhiimsanaa sidii dowladda Austria ay kaalin mug leh uga qaadan lahayd dadaalada midowga Yurub oo qayb ka tahay oo ku bixiyo amniga iyo dowlad dhisidda Soomaaliya iyo sidoo kale taageerada maaliyadeed ee European Union uu toos u siiyo dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu warqadaha aqoonsiga maanta ka gudoomay danjiraha dowladda Canada u fadhiyi doona jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Marwo Lisa Stadelborg. danjire Lisa waxay madaxweynaha soo gaarsiisay salaan iyo fariin ay uga siday madaxda iyo dowladda Canada. madaxweynaha iyo danjirahana waxay ka wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya dowladaha Canada iyo Soomaaliya oo soo jireen ah runtii. inkastoo Canada ay 30 sano u dambeysay kaalin mug leh ku lahayd dadaaladii beesha caalamka ee Soomaaliya loogu gurmanayay iyo taageerada arrimaha bini'aadanimada, haddana danjire Lisa waxay runtii xaqiijisay in dowladda Canada ay haatan diyaar u tahay gacan mug lehna ka geysanayso sidii loo abuuri lahaa taageero maaliyadeed oo ay dowladda Canada ku bixinayso arrimaha horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka ee dhammaan geeyiga Soomaaliyeed. dowladaha Australia iyo Canada waxay ka mid yihiin dowladaha taageerada muujiya dowladda dhexe ee Soomaaliya.